laba qof ayaa ku dhaawacantay khilaaf ka qarxay sarfayn ay banaynaysay dawladda hoose ee magaalada Burco xaafadda Oktoobar ee magaalada Burco oo ahayd goobtii sarfaynka laga fulinayay ayaa iskacan dhaaf ka hor yimi ciidanka booliska iyo shacabkii rayidka ah ee xaafadaasi waxaanay bulshadu ku celceliyeen inaanay goobtaasi ahayn goob ay wado ka baxayso isla markaasina ay dawladda hoose ee Burco u adeegsadeen shacabkaasi awood ciidan jawiga goobtaasi oo isbedelay iyo shacabka oo ku warhelay cagaf dawladda hoose ee magaalada Burco leedahay oo burburinaysa guryihii ay shacabka deganayeen ayay shacabkuna kala hor yimaadeen mudaharaad ay ku joojinayaan cagaftaasi intaasi ka bacdi askari ka tirsan ciidamada booliska ayaa rasaas ku furay shacabkii goobtaasi ku sugnaa waxaanay galaafatay laba qof iyo hanti kamida agabkii iyo raashinkii ku xaraysnaa guryahaasi telefishinka Ariel oo goobjoog ka ahaa madashani isla markaasina ku sugnaa ayaa xog wareystay shacabkii rayidka ah ee xaafadda Oktoobar waxaanay nooga warbixiyeen sidii ay wax u dhaceen dadkeegii loo mariyo loogu laayay xaafadda waa daaradayada lagu haysto ayuu ku dhuftay askariga ku dhuftay weelkayga anaga qadadi karno qolka ku jirna waa ka xaafadda noogu soo gashay wakaa weelkii dawladda saaxibada ula dhacday weel ma noola dad ma noola weelkii wakaa dawladdu maalin walba dadka iyada isku rogaysa xabba saddex xabadood bay nagu rideen ninka ogaan bay noolaynayeen ugu dhufteen yagaa ku dhuftay bariiskiina wakaa dharigii noo karayay iyo xabaddii war ka dul yaacnay ma garatay markaa dawladda madaxweynaha naga qabtay dawladdan waa isdileen gaaradaydina waa shashabiyeen iyo gurigii anigaa markii hore waddo wacan dadka u bixiyey meesha waxa ka dhacay nusbadood baan la soo hadhay nusbadoodkiiba haddana ay igu soo yaaceen haddana waa isdileen haddana nusbadoodkii carruurtii u oday bay agoonta ahayd ilma awilsiibay yaa haddana ka burburiyeen markaa iminka rasaas baa meesha ka dhacdo dad baa ku dhaawacmay laba nin baa dhaawac ma noolin waddadana nusbadoo dhan baan bixiyey oo hadna ka laba balooda hadna baloodka ah yaa watay ciidamada ciidamada dee nimankaa lookalkaa watay lookal gabarman bay ahaayeen diidyo sugaal ninka la yidhaahdo iyo ina muraad labadaa nin baana laayay iyo askartiisii dhanka kale telefishinka Ariel ayaa cisbitaalka ku booqday dhaawacii rasaastu soo gaadhay waxaanay noo faahfaahiyeen siday wax u qabaan daawadayaal telefishinka Ariel oo goobjoog ka ahaa markii shaqaqadina ay dhacaysay ayaa haddana iminka ku soo booqday dadkii ku dhaawacmay cisbitaalka Togdheer ee magaalada Burco bal aan wax ka weydiino bal siday bal wax u dhaceen adigoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa maxamed khaar Muuse Ismaaciil aniga xabaddu waxay igu dhacday oo la igu dhuftay kadib markii dhul aanu leedahay oo aan wada barin inta wadadii la soo duwayna lagu duwaan ku war ka daayo bar hal isugu yimaado cida maamulka meesha ka degmadan iyo cidii joorbitrada ahayd iyo dhamaan aan isugu nimaadno hadii ay wada noqotana aanu helo dhul bedelkii aanu xaq u lahayn ayaa la yiri hadlayaa xabadda ku dhufta marka saddex xabadood baa la igu riday labana midna way dhaafto ninka dhinacayga jiifa bay ku dhacday xabaddii kalena ay igu dhacday halkaas ay kaga dhacday xabaddu halkaana way ka baxday markaa dee waxay qabto dee waxay sheegayaan dhakhtarka bal ninkan kalena bal aynu wax ka weydiinaysana waxa weeye bukaan ay xabaddu ku dhacday adna wala magacaaga Su'aib Abdullahi Abdurrahman baa dhaa meesha man xaafaddu ma isku dhaweynaa xaafadda horteeda iska taagnaa askartan baa xabadii xaasib furana xabadun baa dad anoo iska dhex taagan baa igu soo dhacday xabaddu markaas halkaas kaga dhacday dinkaas markaas deega xabaddu marka adiga wax ku yeeshay deego walaay may dhex bixin laakiin inay fadhidaan maanaya meesha ugu dambeyn waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad waxaanu ka gaabsaday arrintaasi inuu nooga xog waramo daawadayaal haddeer halka aynu ku sugannahay waa goobta shaqaqadu ka dhacday laba qof baana ku dhaawacmay sida ay bulshadu goobtan ku sugan ay noo xaqiijiyeen sarfeen xaafadda laga saarayay ay shaqaqadaasina ka bilaabmatay maxamed Jookar iyo muuqaaladii Cabdiwaasax Kun telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco